مناسبة لغو سو ختمي تفسير القرآن الكريم كاهو شيخ محمد شيخ إسماعيل وكمريني مساجد كويا لا قلبات كمقالة هرقيسا يا لغو سو قبقبيي مساجد كاسي وحنا ختمات تفسير القرآن كاكسو قيب قلي حبنا كميدا قلها وزير دا علماء الدين يددوينك تربضان وحنا وقهورين هالكاسي هذا الكتيري شيخ محمد شيخ إسماعيل ويسواه شيخ مريني مدة 4 سنة تفسير القرآن الكريم كا مقصد كي وجهدده ugu weyne waxa weeyaan inaan ku ikraamno quraanka kariimka ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب إلهي بقرآنك وحو كويل ننك أستامها الروح أستامها قرآنك كرامية تاسي وحي دليل أتهي إنه الروح إيمان ليه waxayaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah culimaa u diinka ka soo qayb galay munaasabadan iyo xubno kamid ah golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliland waa xaflad qiimo badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaynu ka baryeena in Ilaahay naga aqbalo jalsa khaasa oo Ilaahay aynu ku weyneynayno oo Ilaahay ugu dhawaanayno Allah inooga dhigo huwa nimcada ugu qaalisan ee uu raaciyay inay tahay quraanka ugu soo diray isaga ayuu ku noqon karaa qof in dheer garada isana Allah wanaajiyo kiiga ku dayasho wanaagsan Allah inaga dhigo ki Ilaahay dadka codkiisa iyo waanadiisa iyo aqoontiisa u faafinayo dadka Ilaahay galiyana Allah ka dhigo diintu waxay u baahan tahay in lagu dhaqmo hadii lagu dhaqmi waayo waxba ma ay anfac weeye marka waxa uu loo baahan yahay in dadka la yaado diinta ku dhaqma qofan wax garanayna wax u bilownin waa yar yahayba waxayna sii gubayaaba hadaynu jaahilnahay oo qofku aan waxba garanayn yaaba roonaan lahayd baan isleeyahay kol culimada taqaani laakiin waxba ina ololinayo qofkii quraankiina iyo diintiina uu garanaya dhinacna uu ka dhaafaya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu yeelay ama dhexdhigay in iftiin balaaran oo hanuun Ilaahay ku hanuunayo ummadda muslimiinta ah khayrka Ilaahay uu sheegayo Ilaahay dabiga hay naga dhaafo kadamana Allah inaga dhowro waxa dhibaatada geystayba keenayba waa dabiga ummadu sameynaysa Ilaahay hay naga dhaafo kii hore kadamana Allah inaga dhowro Mukhtar Ismaaciil Ali telefishinka Universal Hargeysa